kulanti wanaagsan daawadayaal waa mar kaliya barnaamijkeeni tigsiga fog daawadayaasha qiimaha badan barnaamijkeena tigsiga fog qodobada aad ku daawan doontaan caawa waxa ugu weyn daawadayaasha qiimaha leh wararka ugu dambeeyay ee kulamada adag ee ka soconaya magaalada Samareeb iyo halka ay wax marayaan wararka ugu dambeeyay ee daawan doontaan daawadayaal qodobada kale aad ku maqli doontaanna waxa weeye hadalada ku xeeran iyo arrimaha waaweyn laga wada hadlayo xundub eegis ku sameeyay doonaa waxyaalihii heshiiskii 17 September laga wada hadlay iyo waxyaalaha markaas la isku fahmi la yahay iyo waxyaalaha la isku fahmay waxyaalaha doodu ka taagan tahay sharci ahaan ayaynu eegi doonaa sidoo kale waxaan eegi doonaa doorarka arrimaha qodobada la isku hayo cid markaas goortii u horeysay heshiiskii hore waxa uu qorayay doorka baarlamaanka uu ku leeyahay cabashada ka soo yeedhay gudoomiyaha aqalka sare isagana aan warbixinadii ka hayo iyo qodobo daawashana qiimaha leh ee kala duwan marka ugu horeyn daawashana qiimaha leh aan ka horeysto markaana aan ugu horeysiiye dabcan qodobada waaweyn ee hadeerto laga wada hadlayo ama arrimaha wada hadalada ka soconaya Samareeb ay ugu waaweyn yihiin waxa kamid ah arinta Gedo arinta Somaliland iyo waliba arinta gudiyada doorashada saddexda qodob ayaa weeyay saddex qodobada hadeerto laga wada hadlaya marka si aynu horta intaan wararka ugu dambeeya xogaha ugu dambeeya aynan u gelin waxaan rabaa inaynu fahanno horta heshiisyadan iyo habraacyadii hore ee soo baxay maxay ku saabsanaayeen maxay qorayeen maxay dhigayeen maxaa laga hadlay waxaan sidoo kale ka oran doonaa ama aynu eegi doonaa baarlamaanku waxyaalaha uu ansixiyay madaxweynuhuna uu saxeexay sharci ahaan halkii bay dalka ka galayaan ama waa maxay shuruucda la doonayay dhinaca sharciga marka la eego marka ugu horeyn daawashana qiimaha badan waxaan rabaa inaan fiirino heshiiskii 17 September dhacay ku saabsanaa arrimaha geed socodkan doorashooyinka la saxeexay 10kii la saxeexay 3 bishii October la saxeexay 1 October la saxeexay 3 bishii la faafiyay October kadib markii heshiiska la gaaray 17 December la gaaray marka aan dib u eegno geed socodka doorashooyinka 2021 ayaa la yiri ama 2021 sida uu dhigayo dastuurka kumeel gaarka madaxweynaha baarlamaanka federaalka iyo madaxweynahaba waxay dhamaanayaan December 20 waxay kala dhamaanayaan baa leeyahay December 2020 iyo February 8 2021 sida darteed waxa laga maarmaana in doorashooyin ku dhaca heshiis siyaasadeed oo loo dhan yahay kuna qabsamo xilligooda heshiiskii way markii la saxeexay waayo kan markii la saxeexay dabashana qiimaha badan si ay markaa shaqada u fahanno warbixintana ayna san noqon noqon mid ay yaani ama qofka uu sidoo jecel yahay hadhow uusan u dhigan ama aynu ilaalino waxyaalaha laga wada hadlayo seenan inaga lafkeedu in xintaabka uga bixin dhinaca tabinta xaqiiqooyinka meesha ku xeeran markaas aad u fahantaan intaan xaqiiqooyinka la wadaagin doodaha markaas la fahmaya maxaa la isku hayaa dad walba waxay ku wareysan yihiin maxaa la isku hayaa marka ujeedka aan u akhrinayo arintii la saxeexay October heshiiskii la gaaray September ee October la saxeexay waa sidaad raadid aan sii wado marka iyadoo laga amba qaaday mabaadi'daas iyo go'aamadii hore dhaca ahaa ee lagu gaaray shirarkii Samareeb 1 2 iyo 3 ayaa golaha wada tashiga qaranku ku heshiiyay Muqdisho 17 September 2020 inay dalka ka dhacdo doorasho ay ergooyinka soo dooranayaan xildhibaanada golaha shacabka noqonayaan 101 ergey halka deegaanka doorashaduna ama deegaan doorashaduna ay noqonayso laba magaalo oo kamid ah mid kasta dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka sidoo kale waxaa la horumariyay soo xulista ergooyinka ay ka wada shaqeynayaan odayaasha dhaqanka bulshada rayidka ah ee jufada kursiga leh iyo dawladda xubnaha ka ah dawladda federaalka nidaamka doorasho ayaa tirada ka qaybgalka iyo deegaan doorashooyinkuba ka horumarsan yihiin markii loo barbar dhigo doorashooyinkii 2016 taasoo noo sii dhaweynaysa in 2024 ama 2025 ay dalka ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah heshiiska golaha wada tashiga qaranka uu gaaray 17 September 2020 waxaa la horgeeyay labada aqal ee baarlamaanka federaalka labada aqalka sanadkay dabcan aqalka hoose oo kulan wada jir ah ku ansixiyay 26 September 2020 xukuumadda federaalka Soomaaliya waxay u soo gudbinaysaa hay'adaha qaranka qoraalka faafinta iyo dhaqangelinta doorashooyinka ee 2021 xukuumadda federaalka Soomaaliya iyadoo eegaysa muhiimadda ay leedahay in doorashooyin xor iyo xalaal ah oo daahfuran dalka ka dhacaan waxay ku wargelinaysaa dhammaan hay'adaha qaranka ee ku shaqada leh arrimaha doorashooyinka inay waajibaadka kaga aadan u gutaan si waafaqsan habraacyada doorashooyinka lagu heshiiyay habraaca hirgelinta heshiiska siyaasadeed ee hagaya doorashooyinka sanadka 2021 waxay la socdaan qoraalkan ayagoo ka kooban 3 lifaaq oo kala ah marka waa ku lifaaqyadii dabeeshana qiimaha leh
waana wada saxan yihiin dhammaantood oo ra'iisul wasaaruhu uu soo saxay dabcan weeye lifaaqa koobaad guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal kow laba lifaaqa labaad guddiga maamulka doorashada heer dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaal saddex lifaaqa saddexaad guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka saddex lifaaq ayaa la saxay aan ku sii soconno marka si aynu u fahanno arrimaha oo dhan kadib waxaa la yidhi habraaca wada tashiga qaran hirgelinta siyaasadeed ee hagaya doorashada 2021 dabcan maadaama sanadkii hore la qoray saasi marba si uu qorantaan jeclaa inay usoo miingurino si asalka inuu ilaalino guddiga maamulka doorashooyinka dadban ee 2021 ee heer dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka saxiixayaashii oo dhan ayaa halkaas ku qoran dhammaantood waxaana sii socona marka mabaadi'da kow waxaa la golaha wada tashiga qaranka isagoo ka duulaya heshiiskii siyaasadeed ee soo baxay September 2020 qodobkiisa koowaad oo sheegayay magacaabista guddi laba heer ah ansixiyeen labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya September 2020 waxaa habraaca lagu qeexayaa waajibaadka guddiga maamulka doorashada heer dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka siday ku imaanayaan laba golaha wada tashiga qaranku wuxuu go'aamiyay in guddiga maamulka doorashada heer dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka uu ka kooban yahay 11 xubnood kuwaasoo 8 ka mid ah ay soo magacaaban doonto dowladaha xubnaha ka ah ama dowladda xubinta ka ah federaalka halka dowladda federaalka soo magacaabanayaan min 3 xubnood 11 dabcan weeye halkii maamul goboleedba xubnood oo guddi walba oo heer dowladaha xubnaha ka ah saddex golaha wada tashiga qaranku wuxuu go'aamiyay in guddiga maamulaya doorashada Somaliland ay soo magacaabaan xukuumadda dowladda federaalka ah qodobkaas aad ugu fiirsada dabayshan qiimaha leh marka la ku celinayaa waa qodobada la isku hayay kamid tahay saas xiise gaar ah inoo yeelanaysa waa heshiiskii ay madaxdu saxeexday ee 26 baarlamaanku ansixiyeen September qodobka saddexaad golaha wada tashiga qaranka wuxuu go'aamiyay in guddiga maamulaya doorashada Somaliland ay soo magacaawdo xukuumadda dowladda federaalka ah iyagoo la tashanaya siyaasiyiin ka soo jeeda Somaliland halkaas waxaa ka cad meel ay gudoomiyaha aqalka sare lagu yiri ha ku jiro ama dabcan aqalka sare si gaar ah loogu xusay ma jiro dabcan siyaasiyiinta la yiri Somaliland ka soo jeedana de intay doonaan bay noqon karaan dabcan horeyna watii uu research ku-xigeenka marayna warayska qaadnay uu sheegay inuu dadka lagala tashaday ku jiro wayna arki doonaan saxiixa guddiga heshiisyan uu saxiixay gudoomiyuhu qodobka afraad guddigu wuxuu xilkiisa u gudan doonaa si ka madax bannaan dhammaan mas'uuliyiinta siyaasadda iyo hay'adaha labada heer ee go'aanada gaadha 5 guddiga maamulka doorashada ee heer dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka waa inay ka mid noqdaan ugu yaraan 30% dumar ah si loo xaqiijiyo ka qaybgalka siyaasadeed ee dumarka 6 mudaxilaadka guddigu wuxuu ku egyahay hirgelinta doorashada 2021 ayaa lagu yiri marka shuruudaha xubinimada halkan lagu qoray marka ayaduna waa arrinta la isku hayo ayay kamid tahay qofka xubinta guddiga kamid noqonaya waa maxay shuruudihiisu ma ku jirtaa waxyaalahan hadeerto laga wada hadlayo mase ku jirto waa tan shuruudihii ayagu ay saxiixeen waxaan wixii madaxdu saxiixday waa heshiiskii baarlamaanku ansixiyay waana waxa loo yaqaan land of the law labada aqalba way ansixiyeen madaxweynuhu wuu saxiixay faafintaana waa la geliyay waa sharci dawladdu leedahay wax laga bedeli karaa ma jiro waa in baarlamaanka dib loogu celiyo madaxweynuhu dib u kansalo waa sheeko aad u dheer in dastuurka dib loo eego waayo laakiin waa hadeer waa arrin dastuuri ah oo kale waa arrin sharci ah oo dalka gashay kow waa inuu yahay waa shuruudihii dadka xubnaha guddiga doorashooyinka wey kow waa inuu yahay muwaadin Soomaaliyeed muslim ah dhimirkiisu dhan yahay da'diisuna aysan ka yareen 30 sano xilliga la magacaabayo laba waa inuu yahay qof dhexdhexaad ah ku leeyahay sumcad wanaagsan bulshada dhexdeeda saddex waa inuu yahay qof hufan karti leh una gudan kara waajibaadkiisa si daahfuran afar waa in maxkamadi aysan ku xukumin xarig ka dhashay faldambiyeed ciqaab ah 5 sano ugu dambeysay 5 waa inuusan xil siyaasadeed ka hayn dalka waa qodobka muhiimka ah inuusan xil siyaasadeed dalka ka hayn xil siyaasadeed waxa loo yaqaanaa xildhibaan madaxweyne wasiir ra'iisul wasaare waa political appointee baa la yiraahdaa waa xil dekreeto ku soo baxa kadibna la ansixiyo oo cid ansixiso xil siyaasadeed marka meesha kuma jirto inuu military ahayn laguma qorin military uusan ahayn nabad sugid inuusan ahayn inuusan ahayn maadaama ay jireen eedeymo ah askar baa ku jirtay oo askarta watil yamin uu la siyaasadeynayay la meel walba ku jiraan inkastoo aan cadeyn la keenin askar qaarkood yihiin laakiin eedeynta ayaa ahayd oo inkastoo aysan guddiga doorashooyinka iyagu lafkooda aysan cadeynin oo aysan dhihin anagana askar nagu jirto qolada eedeynaysan aysan cadeynin si kastaba ha noqotee
askar meesha laguma soo hadal qaadin waxaa la yidhi qof aan jaga siyaasadeed aan haynin 6 waa in aqoontiisu aysan ka hooseynin heerka koowaad ee jaamacadda ama waayo aragnimo u dhiganta leeyahay 7 waa inuu fahmi karaa nidaamka doorashooyinka dadban ee sanadkan soconaya 6 waa inuusan wax xiriir la lahayn kooxaha argixisada qaab dhismeedka gudiyada iyo arrimahaas waa iska sheeko kale taas waa taas daweeshana qiimaha leh tan kale iyaduna muhiimka ah qodobadii wali way noo taagan yihiin iyo faafahintiina waa idin hayaa wararkii ugu dambeeyay oo arinta gadub maxaa la iska yiri arinta nabadgelyada arrimahaas oo dhan aynu hadaba fiirino arrimaha dhinaca hadaba dawladii xilka dawladnimadii ama waa toy qodobka hore ku arkayseen uu soo dhawaaday ama madaxleedka dawladda waa gabagabo laakiin ayada lafteeda maxaa baarlamaanku maxay ka yiraahdeen arintaas maxay gudiyadu ansixiyeen maxaa heshiisyada ku qornaa waxaa jiray markaas habraac ay gudoomiyaha labada gudoomiye ay soo direen baarlamaankuna ansixiyeen kaasoo dhigayay in hay'adaha dawladdu ay sii shaqeyn doonaan dhammaantood waa madaxweynaha ra'iisul wasaaraha golaha wasiirada waa baarlamaanka labada aqal tan iyo inta baarlamaanka 11aad ee qaranka la dhaarinayo waana tan dikreetadii iyo dabcan sharciyadii aqlabiyada baarlamaanka ee soo baxday qodobka koobaad ayaa la yiri tusmada qodobka koobaad dib u dhigista doorashada tooska ah qodobka labaad sharciyeynta heshiiskii siyaasadeed ee doorashada qodobka saddexaad xilhaynta hay'adaha dastuuriga ah ee dawladda qodobka afraad dhaqangalka sharciga afarta qodob ay baarlamaanku soo saareen ama afarta meerisood fiiri qodobka ugu horeeya sida loo tixgeliyay dib u dhigista doorashada tooska ah waayo baarlamaanka horay ayaa loogu gudbiyay doorashada qof iyo codka xukuumadana horay barnaamijkaasi u diyaarisay dawladda baydhaba ay ka soo bilaabatay qorshahaas ka soo bilowday marka dib baa loo dhigay ee meesha lagama saarin waxa loo yaqaan cod iyo qof waana arrimaha muhiimka ah soo jeedashada leh weeyaan marka waxay yiraahdeen baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya weeye go'aanka ay soo saareen lambarkiisuna uu ahaa 2021 sharciga jihaynta doorashooyinka ayuu daba socdaa waa kii laanta fulinta maanta Dhuusamareeb ama Samareeb fadhida ay soo saareen marka faafahinta faraha badan waxba raacayna waxaan u gudbinaa nuxurka inta qodobka koobaad baan ka bilaabanaa dib u dhigista doorashada tooska ayadoo aan waxba loo dhimaynin qodobka 64 ee dastuurka firqadiisa koobaad iyo ka 72 firqadiisa koobaad ee dastuurka federaalka Soomaaliya qeexaya in ay shacabka Soomaaliyeed doortaan baarlamaanka dabcan weey ayaa sharciga dib loogu dhigay qabashada doorashooyinka tooska ah ee labada aqal ee baarlamaanka 11aad ee sanadka 2021 iyo dhaqangalka sharciga doorashooyinka qaranka heer federaal lambarka inta iyo inta laba xubnaha labada aqal ee baarlamaanka 11aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxaa lagu soo dooranayaa nidaamka doorashooyinka dadban waa doorashada la ansixinayo qodobka labaad sharciyeynta heshiiska siyaasadeed ee doorashada qodobka koobaad waxaa isla qodobkaasi labaad waxaa lagu sharciyeeyay heshiiska siyaasadeed ee golaha wada tashiga qaran ku taariikhaysan yahay 17 September waa 2020 bisha 9aad oo lagu jihayay qaabka doorashooyinka ay ku imaanayaan xubnaha baarlamaanka 11aad qodobka afraad heshiiska siyaasadeed ee ku xusan firqada koobaad ee qodobka ayadoo aan nuxurkeeda waxba loo dhimaynin waxaa loo xeeriyay loona siqeeyay sidan in xulista ergada ay iska kaashadaan odayaasha dhaqanka iyo bulshada rayidka ee beesha kursiga iska leh dowlad goboleedyaduna ay yeeshaan diiwaangelinta ergada taasna waa cadday waa wixii baarlamaanku ansixiyeen labada aqal waa land of the law dhowr jeer waa idin sheegay waa sharciga dalka weeyaan 3 heshiiska siyaasadeed ee halkan ku lifaaqan kuna xusan firqada koobaad ee qodobkan waa qayb kamid ah nuxurka sharciga oo aan ka go'i karin ayaa lagu yiri qodobka 3aad oo inuu gudbin xilhaynta hay'adaha dastuuriga ah ee dawladda waxaa jira jaawareer ay dadka qaarkood abuurayaan oo la aaminsan yahay sida bisha maxaa dhici doona sida bisha sabaa dalku noqon doona waa horal wadanka dawlad iyo hay'ado dhisan leeyahay sidii waxaa muhiim ah in dad wax garanaya ay gacanta ku hayaan waxaa kaloo muhiim ah in all the scenarios waxay gaaladu tiraahdo wax kasta suurtagal ah oo lagu tashado oo dalka waa dal yani dhibaatooyin ku socdaan sida daraadeed waa in mar walba ilaalinta diintuna waa sidaas xitaa marka loo eego hogaanka inuusan qilqil gelin waa saas sida daraadeed 27 bisha September baa arinta laga wada hadlay oo arintaasi la qoondeeyay fiiri sida loo qoray marka xilhaynta hay'adaha dastuuriga ah waa qodobka 3aad ee baarlamaanku waxay jideeyeen si aysan u dhicin
firaaq ku yimaada sharciyada jiritaanka hay'adaha dastuuriga ee dowladda federaalka Soomaaliya baarlamaanka tobnaad oo awoodihiisa dastuuriga ah u dhameystiran yahay ayaa xilkiisa sii haynaya ilaa iyo maalinta loo dhaariyo xildhibaanada loo soo doortay baarlamaanka cusub ee 11aad ee Soomaaliya si waafaqsan qodobka 6aad ee dastuurka federaalka iyo wax ka bedelka lagu sameeyay sharciga lambarkiisu 20 sharcigiisa lambarka 20aad ee 27kii bishii 6aad 2016 ayaa qodobkaas la ansixiyay waa xilligii madaxweyne xasan sheekh maxamuud qodobkan marka waa dastuuri qodobka 6aad ee dastuurka dowladda federaalka weey waxaana qodobkaasi wax laga bedelay 27 bishii 6aad 2016 xilligii madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaana saas laga dhigay oo la yiri baarlamaan inta la dhaarinayo baarlamaankii kala ayaa xilka sii haynaya hay'adii dowladda ra'iisul wasaarihii madaxweynihii caadi weey marka ilaa inta baarlamaanka 11aad la helayo dhibaato ma jirto halkaasi waa dastuurkeena iyo sharciyeenu leenahay ayagana qoraya dowladdu sidaas caadiga ah u shaqeynaysa hay'adaha kale dastuuriga ee federaalka ayaa leeyahay waa hadalkii sidoo u qornaa ayaa xilalkooda sii haynaya ilaa inta laga dhisayo hay'adu walba hadii hay'adii bedelay salahan wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ama wasaaradda arrimaha gudaha taydon taa noqoto xilka wuxuu haynaya ilaa inta wasiirka la soo magacaabay madaxweynuhu inta madaxweynaha la dooranaysa xilka haynaya asaga xitaa dil loo doorto dib baa loo dhaarinaya badhaar kala la marinaya madaxweynaha oo la marinaya waayo teram cusub u bilowday gudoomiyaha baarlamaanada labada aqal ayaga xilka haynaya ilaa inta la helay xildhibaanada waa sidoo kale marka taana in sidaas loo fahmo marka waxa la yiri qodobka ugu dambeeya waa dhaqan gelinta sharciga wuxuu dhaqan gal noqonaya kadib marka baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya uu ansixiyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka uu xeer madaxweynaha ku meel mariyo laguna soo saaro faafinta rasmiga ah ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya si waafaqsan qodobka 84 ee qodobka 89 ee dastuurka federaalka intiibana way dhacday waana la ansixiyay tan waxa ku saxan mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan gudoomiyaha golaha shacabka iyo mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi gudoomiyaha golaha aqalka sare ee Muqdisho Soomaaliya markaas baa halkan ka qoran Muqdisho September 2020 ayay ahayd asixintaasna Muqdisho September 2016 ayayna asixintaasi ahayd hadaba yaasha qiimaha leh arrimaha ay dib u fiirino rabraacyadaas oo dhan waxay ka turjumayaan hadaba waxa maanta ka soconaya Samareeb wararka ugu dambeeya Samareeb marka waxa meesha yaala waa saddexda qodob arrinta gado maxaa laga yiri marka habraacyada arrinta gado dhinac waxay ka soo galaysaa dhinaca amniga iyo cidda gacanta ku haysa magaalo kasta oo doorasho ka dhacayso marka koobaad waxa amnigeeda gacanta ku qaban doona saddex ciidan ayaa iska kaashan doona waa ciidanka Somali National Army SNA ciidanka qalabka sida Soomaaliya AMISOM oo halka booliis iyo saraakiil u diri doonta iyo ciidamada daraawiishta maamul goboleedyada marka gado tusaale ahaan waxay kaga duwan tahay Boosaaso iyo Garowe ma jirto marka loo eego dhinacaas laakiin dhinaca marka ay noqoto cidda hadeerto maamulkeedii gacanta ku haysa arrin doorashada khusaysan maaha ayay leeyihiin dhinaca dawladdu saas leedahay oo gacan ku haynta magaaladaas iyo amni sugisteeda iyo waxay ahayd arrin u baahneed dib u heshiisiin dheer sidii galmudug ka dhacday cadaade iyo dhuuso mareeb oo ra'iisul hore Soomaaliya iyo xukuumadda dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxweynaha iyo wasiirada arrimaha gudaha iyo bilowin joogeen arrin noocaas oo kale u baahan tahay waa process dheer ayaa la leeyahay laakiin arrinta doorashada markay noqoto dhinaca amniga waa la wada sugayaa ayay dhinacyada dawladdu leeyihiin laakiin dhinaca Jubbaland ayagu waxay leeyihiin in anaga maamulka anaga aanu gacanta ku dhigno weeyaan taasna waxa la leeyahay waaqica gudaha ka jira sidaas maaha waayo waaqica gudaha ka jira dawladda federaalka waxay leedahay Jubbaland madaxweynaheeda iyo gedo ama bulshada gado waxay u baahan yihiin dib u heshiisiin in loo sameeyo buuxda taasna waqti ay qaadanaysaa ama waqti ay u baahan tahay haddana laga gaaro waxa laga gaaro waxa sugitaanka amniga doorashooyinka saddexda qaybood ee ciidanka la geeyana waa diyaar ay dhankooda sheegayaan laakiin se Jubbaland arrintaas maanta madaxweynaheeda iyo dhamaan waxay kaga doodeen in arrintaasi aysan yeelaynin ama aysan noqon doonin arrinta kale muhiimka iyaduna arrinta laga hadlay waxa weeye arrinta meesha tala waxa weeye guddiga doorashooyinkana waa taan idin sheegnay qodobada laga hadlaya waxa weeye lama cadeeyay wax golaha wasiirada ama xildhibaanaha guddiga doorashooyinka kamid ah xubnahan ku saabsan dhinaca shaqaale dawladeedna kuma jirin shuruudihii ayagu ay saxiixeen habraacyadii taasna waxa la sheegay iyaduna inay doodaha waxyaalaha adkeeyay ay kamid tahay qodobka kale isaguna muhiimka meesha ku jira waxa weeye waa qodobka ku saabsan Somaliland oo aad xiiso u leh
cabdi xaashi cabdilaahi gudoomiyaha aqalka sare wuxuu sheegay in uu doonayay inuu ka qayb galo shirka sidaa daraadeedna uu madaxweynuhu u diiday inuu ka qayb galo hase yeeshee horfar media maray wax ka weydiisay dhinaca xukuumadda waxay sheegtay in shirkan uu ahaa shir fulineed madaxweynuhu cidda gogasha u dhigay iyo cidda invitationka loo diray ama casuumaadda loo dirayna ay ku caddahay barta rasmiga ah ee faafinta dowladda ayna ahayd laanta fulinta dalka hadday tahay mid federaal iyo heer maamul goboleed madaxweynayaasha maamul goboleedada xafiiska ra-iisul wasaaraha ugu sarreeyo iyo madaxtooyada oo iyadu shirka qaban qaabinaysay ay qorshahu saas ay ahayd balse aysan ahayn haba yaraatee arrin u dhaxaysay baarlamaanka ama laanta sharci dejinta iyo laanta fulinta laanta sharci dejintana waxaa lala ballamay maalinta jimcaha ah amba 5 bisha in lagu soo warceliyo oo ay dhageystaan oo ansixiyaan wixii ka soo baxa ama halkii looga dhaqaaqayo maanta meesha la taagan yahay sida daraadeedna arintu iyaduna halkaas ku jaban tahay baa leeyahay ta kale ee iyaduna isweydiinta madaxa weeye Somaliland arinteeda sida heshiiska ku cad waxaa heshiiskii ku cadda in Somaliland arinteeda ay maamulaan dowladda federaalka doorashooyinkii ugu dambeeyay ee Somaliland dadka ka soo jeeda lagu qaban jiray oo ay ahayd tii ugu dambeysay tii 2017 dhacday waxaa maamulayay dowladdii markaas joogtay ra'iisul wasaarihii xilligaas ayaa magacaabay Umar Cabdirashiid baa magacaabay maamul goboleedada kalena xaq dastuuriya iyo xaq heshiiska midna uma laha inay maamul kale ama dad kale ama deegaan kale doorashadooda oo aysan ayaga oolin deegaankooda salahan deegaankooda hadii la dhihi lahaa garow lagu soo doorto xubnaha Somaliland lug bay ku yeelan lahayn laakiin maadaama la cadeeyay in ay dowladda federaalka qodobka 3aad waa xasuutaan in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay maamulayso arintaasi lana tashanayso dadka ka soo jeeda siyaasiyiinta oo dabcan qaarkood arinta gacanta ku bahayaan in ay sidaas ahayd ra'iisul wasaaruhuna saas uu ku magacaabay xafiiska wasaaraha iyo xubno ra'iisul wasaaraha ka tirsan saas ay warka u cadeeyeen waxay leeyihiin arintaasi waa arin sharci darro ah mana aha dooda inay soo gasho in maamulo kale ay ka hadlaan arin yaani maamul kale oo dowladda ama dad kale oo deegaan kale ka soo jeedaan ka wada macnaha waxa ka hadlaya dadka Soomaaliland ka soo jeeda iyagu midnimo doonka way waxa laga hadlayaa inaysan shaqo ku lahayn ayay saas hadalka u dhigeen dhamaan marka la isku soo koobo wada hadaladii ilaaha darto way socdaan isla markaana marka aynu fiirino wax ma ka soo baxayaan wax ka soo bixi karaan meesha la kala taagan marka aynu fiirino ilaahay baa qortay wax ka soo baxayaan laakiin kale laakiin wada hadaladu way adag yihiin waayo shuruudaha ayaa waxay baalmarsan yihiin dhamaantood sida ay dawladdu dhinaceeda sheegayso sharciyadii lagu heshiiyay heshiiskii 7 September dawladda federaalka Soomaaliya madaxweynaha xafiiska wasaaraha labadaba waxay xaqiijiyeen in iyagu ilaalinayaan wixii lagu heshiiyay in wax lagu daro la horumariyo oo la wanaajiyo mooyaane in aan waxba laga dhimin in wax laga dhimo aysan ahayn wax u wanaagsan Soomaalida sida daraadeedna dawladda federaalka waxay mar walba sheegaysaa dhankeeda in ay diyaar u tahay dibacsanaan oo shirka ay muddo sugaysay shirka ay codsadeen xubnaha maamulada qaarkood la qabtay haddana saas oo ay tahay aysan muuqanin ilaa hadeerto waxyaalo muujinaya in ay dhibsayl xoogan u jiro dhinaca kale maamulka Puntland xubno ka tirsan iyo Jubaland labaduba waxay leeyihiin waxa kaliya namari kara waxa weeye waa arinta Gedo iyo arinta Somaliland oo labadaas ay aad ugu taagan yihiin oo leeyihiin labadaasba in wax taladooda dib loo shaandeeyo ayay noqonaysaa si kastaba ha noqoto mar walba khayr weyn rajeynayna hadii baydmo waxaan jeclaan lahaa idinkana dadka Soomaaliyeed inaad ka soo qayb qaadataan barnaamijka sidee u aragtaan arintan dabcan maxayse kula tahay in sharciyadaas baarlamaanku ansixiyay marka hore golayaasha soo ansixiyeen maamuladu ay soo ansixiyeen iyo golaha wada tashiga qaranka madaxweynaha uu saxeexay ra'iisul wasaaruhu uu asaguna ogolaaday faafinta ku qoray kadibna aqalka baarlamaanka ay ansixiyeen labada aqalba sidee arrin sharci ah soo in hadana baarlamaanka dib loogu celiyo maaha waqti ay qaadato sidee bay kula tahay fikradaada adoo koobaya amaana